אצל הידיים של עז-א-דין אל-קסאם. אני רוצה שכל האסירים יחזרו הביתה, כל הישראלים יחזרו הביתה. תמשיכו. והלוואי ואחי היה יוצא איתי והיה לצידי עכשיו, לצערי הרב. תודה רבה לגדודי עז-א-דין אל-קסאם שאנחנו יוצאים עכשיו הביתה היום. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saaxiibayaal على soo dhawaada. magacaygu waa cabdirasaaq qariib. waxaad rajeynaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabo. sidoo kale dhammaan dadka muslimiinta qof walbo xanuunsan waxaa uu rajeynaa inuu ilaahay caafimaad degdeg siiyo. haddii ay tahay markaa kugu horeysa aad soo booqatay youtube channelkii subscribe saar, sidoo kale facebook pagekeen follow soo dheh. aad iyo aad u mahadsan tahay. videogan waxaan uga hadli doonaa sida aad thumbnailkaba ugu jeedaan. raggan oo saddexda ah waa dadkii oo la haystay yani ururka al-qasaam ee xamaas ay soo xiratay hor 7 Oktoobar 2023 markii oo xamaas ay ku duulayeen oo weerar ka geysanayeen Tel Aviv ee Israa'iil. saddexdan nin waa ujeedin inay faraxsan yihiin. dadkii lasoo qabtay ku jiraan oo yani lasoo xirtay, yani waxay leeyihiin markaan iikay kusoo gaartay dad badan oo xaajira oo lasoo qabtay kadibna oo dadka la daanaya ku jireen. markaan iikay kusoo gaartay waxaa waa in la fasaxo. way faraxsan yihiin. marka ururkan oo xamaas waxaa waaye ilaahay waxa uu baryeena in wadankooda amni uu dhigo, sidoo kale xorriyadooda ilaahay uu soo celiyo. raggan hadda waxay leeyihiin anaka waxaa waaye oo ku mahadsantihiin dadkii oo Israa'iil naga difaacay dhibaatada intii dagaalka socday iyo intii duqeyntii iyo wixii socdeen. אצל הידיים של עז-א-דין אל-קסאם. אני רוצה שכל האסירים יחזרו הביתה, כל הישראלים יחזרו הביתה. תמשיכו את העסקה השנייה ואת העסקה השלישית, בבקשה. אני יוצא היום בעסקה הראשונה, והלוואי ואחי היה יוצא איתי והיה לצידי עכשיו. לצערי הרב ממשלת ישראל והפצצות חיל האוויר והלחץ הצבאי הרגו אותו, ולממשלת ישראל יש רק דרך אחת להוציא את האסירים מפה, וזה דרך המשא ומתן. תודה רבה לגדודי עז-א-דין אל-קסאם שאנחנו יוצאים עכשיו הביתה היום. תודה רבה. kan meeshaan ay ku jiraan, meeshaan waa tuneelka oo lagu hayay maxaabiista Israa'iil intay ku jireen. meeshaan waxay ku jireen 14 bilood 15 bilood ugu jireen sanad iyo xoogaha. hadda dharka loo keeno qof walba waxaa leeyahay dharka gasho soo labiso. markaan waxaa isku diyaarinayaan in banaanka loo bixiyo. كان banaanka in loo bixiyo isku diyaarinayaan. bal meeshaan ku jireen fiiri. wallahi meeshaan tuneelka waaye qaybtii oo xamaas dadka ay ku hayeen meel ka mid ah waaye. Israa'iil meeshaan in ay kasoo furanto way isku dayday 15 bilood dagaal ugu jirtay si ay dadka meeshaan ugu soo furtaan. wayna awoodi waayeen yani in ay soo furtaan dadkan oo maxaabiista ah. يعني waxaa moogtaa haddii ilaahay adima macaaga uu yahay cid yani wax ka qaadi karta malahan. dadkan xamaasna waxay aaminsan yihiin waxaa waa in ay xaq u dirirayaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda inay difaacayaan ay aaminsan yihiin. marka waa kuwana hadda baabuurtan la soo saaray. waxaa loo sii wadaa markaan meesha oo looga saxiixi lahay warbixintooda, yani oo lagu kala gudbisan lahay ururka bisha cas loogu gudbin lahay. meeshaasaa loo sii wadaa. baabuurta waa kuwana, baabuurtan waa baabuurta bisha cas kuwa oo maxaabiista kala wareejinayo. meeshaan waa meesha xafladda lagu soo bandhigayo oo yani dadku lagu kala wareejinayo oo xamaas ay leeyihiin. waxaa moogtay qofka markuu qadiyad u dagaalamayo iyo qof markuu asiga yahay qof oo dulmi waa isku mid ma. dadkan yani falastiiniyiinta waa dad u dagaalamaya qadiyadooda qaateen intooda iyo dadkooda iyo waxay u dagaalamayaan iyo waxaa dalkooda. منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. الله أكبر ولله الحمد.
hadda warqadihii la kala saxiixay waaye, waa la kala saxiixay. markaan waxaa waaye nimankaa la kala wareejinaa. baabuurtan waxaa laga soo dejinaa, baabuurta kale waxaa la saara oo kuwa bisha cas. raggan 15 bilood ay xirnaayeen, caabiisi ahaayeen, dharkooda loo soo geliyey. videoan yaraa jeclaysta inay la wadaago. aad iyo aad umahadsantahay haddaa videoga dhammaadkiisa soo gaartay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.